موقف حزب قاتي بارجي شيء waxaan qaaton xisbigan ku hogaaminay haddana odaygiisa ahay xisbiga kulmii kii carooday la qabayo kii wax tabanaya in la bogsiyo in madaxda xisbiga oo koob ka laga gardaraado oo dul qaataan in waxa la wixii ku yimaado bay dhulka dhigaan oo walaalo iyo maxay naga xuran ku wado dabeetana qof walba inagoo qarcinay oo iswadana aynu halkeeda gaarno موقفكانو قادنا waa ka nin kasto oo wax ka tabanaya xisbiga ama shirka waxa tilmaamaya sida loo xalliyo khilaafaadka iyo muranka xisbiga yimaada qodobka 5 ee xisbigu leeyahay ee dastuurka xisbiga waxa loo yimaadana annaga iyo madaxweynuhu tallaabo midaysan oo ka tashanay ayaanu qaadanay oo aanu isku ognahay halmaa waxa la tumayay madaxweynaha iyo gudoomiyaha iskhilaafsan waxaan sheegaynaa iskhilaafsan ay kalsooniduna boqolkiiba boqol tahay markhaatigeedana waa arrin sheegaya hadal diblomaasiya ma aha fadhi kala ah hadalku qaboojina ma aha kalsoonida siinaya xisbiga dhexdiisa mar kasta oo anigu aan tartan siyaasiga galay oo xisbi wax ka doonay mar walba madaxweynuhu gacan sii taagay waana ugu raacay waana ugu dhis labada koriisteedii markii aanu cararayay gudoomiye ku-xigeenka tartankii ka dhacay ambassador madaxweynuhu gacan sii taagay waana ugu dhis burco golihii dhexe in la igu wareejiyay xisbiga gudoonkiisa golaha dhexe markii uu gacanta loo taagay jaamac shabeelkan ay fadhiya gudoomiyaha golaha dhexe madaxweynuhu gacanta ayuu taagay markuu xukuumadda qabtay halkan ay wada joogteen gudoomiyuhu isaga oo 3 bilood dowladda han bii wareejiyay xilkii imika markii buuqi kulmiye dhacay ee tartankii shirweynuhu soo baxay ee buuq badan dhacay madaxweynuhu ka bareeray uu taageero wuxuu lahaa loo daayay gudoomiyaha inaan tartanka aan yareyn soo jeedaasu keenay dadka maanta igu leh ama rumaysan madaxweynuhu anaga inaan dagaalamayo ama wax xumaynayo markhaatigeedu waa ka koobaad shirkayga qabsoonkiisu waa dhay guddiga qaban technical maalinta diyaarshay tilaa waanu diyaar baana oo waliba didijinayno oo labada bilood soo saarnaa dhaafmay dhaydkana waxay ku xarantahay hadaan dhowr jeer bixin waxaan u baahnay inaan hubino guddiga qaban hawleed inay ku dhamaato nin kasta xisbi soo galay oo gudoomiye xisbiga noqday ama guddi filadii qana xisbiga lacag loo meeyay nin waliba wuxuu doonayaa inuu jagada u sareysa madaxweynaha tartan u galo taasna waa tan socdo marka ay soo gashay xisbigeena ay ogolaan